fadhigan oo ah mid lagu soo gabagabeynayay dhageysiga dacwadda loo haysto toddobadan xubnood oo ku eedeysnaa ka mid ahaanshaha al-shabaab ayaa maanta ka dhacday magaalada Gaalkacyo taasoo ay goobjoog ahaayeen saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolada Mudug iyo Cayn taasoo lagu eedeeyay toddobadan qof inay ka tirsan yihiin al-shabaab isla markaasna howlo kala duwan ay qaabilsan yihiin xeryaalaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolada Mudug iyo Cayn gaashaanle Cawl Dhilay ayaa halkaasi ka hadlay isagoona ku eedeeyay raggaana inay ka tirsan yihiin al-shabaab isla markaasina uu ku eedeeyay waxyaabaha ay qaabilsan yihiin bismillaah alxamdulillaah wathanaa'u lillaah washukru lillaah walkibriyaa'u lillaah walcadamatu lillaah وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم وبعد تضبيع لبعتنكي بشن جنوري محكمة waxay u fariisatay garmaqal waxaan halkan ka jeediyay doodii lixda eedaysana oo kala ah فرحان فيصل صلاة حرسي سقالية توبنشير إنا أبح أحمد وهلية عبد الله فيصل حسين عيد سقالية توبنشير إنا علي إنا حليمو محمد حاشي برخد عول حرسي النور سقالية توبنشير إنا بارلين علي حسن ليبان آذن موسى لباتن جير إنا نمعو حسن مهدي عبد الرحمن عبد القني فرحان عبد الله سديدية توبنشير إنا خطرو محمد نور عبد الرحمن عول محمد سديدية توبنشير إنا سمسم صلاة kuwaas oo ku eedeysan shariicada islaamka adillada aayadaha quraanka iyo axaadiista ay ku xadgudbeen iyo xeerka lambartayn qodobka labaad farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta waxay joogtay markii aan ka soo hadlay eedayntoodii waxay joogtay eedaysanaha lixaad oo aan dacwadiisa dhameeyay qareenkuna muxyidiin oo qareen u ahaana uu dhageysanayay inaan bilaabo baarista booliska iyo wixii lagu eedeynayay hadday ahaayeen adilooyinka shariicada islaamka iyo haddii ay ahaayeen dambiyaday galeen qodobada waafaqsan qareenku si fiican buu u maqlayay nin walba taariikhdu wax dilay iyo ninkuu asagu gaar u dilay iyo ninkuu soo ilaaleeyay iyo ninkuu hubiyay meedkiisa halkaan ku qoranta waxa laga soo tagay ma jirto Bukhari ma joogin laakiin Muxyidiin waa joogay waan u dulmarayaa qareennada aan joogin si ay uga faa'iideystaan gaashaanle sare cabdirashiid xasan xaashi gebigebi 27 bishii toddobaad 2018 dulqarnayn salaada cishe ka bacdi
waxaa ku dilay farxaan faysal xirsi daalin munir gacanta koowaad isagala sahanka iyo soo wiidaynta waxaa lahaa cabdiqani farxaan kulu gaashaanle gaandi cabdiraxmaan nuur 22 bishii afraad 2017 xere inji abbaaro 9kii fiidnimo waxaa gacantiisa ku dilay barkhad cawil xirsi nuur sahanka iyo soo wiidaynta waxaa lahaa kuluu waa magaciisa xarakiga waa cabdiqani kuluu xildhibaan mukhtaar axmed tinle iyo ibraahim sheekh waxaa gacantiisa ku 22kii bishii saddexaad 2020 makhaayadda ohio salaadii cishe kadib waxaa gacantiisa ku dilay barkhad cawil xirsi nuur iyo farxaan faysal munir nina gacanta koowaad lahaan nina gacanta labaad ah labadaa marxuum labadaa nin baa dilay gaashaan la dhexe xaashi aadan cilmi xaashi fari 18 bishii 11aad 2019 kabidda abbaaro salaada maqrib ka hor waxaa ku dilay farxaan faysal munir hubinta meydka waxaa lahaa cabdiqani farxaan kulu ayaanle ildheere maxamed 24 bishii 11aad 2019 hotel juba salaada cishe kadib waxaa ku dilay cabdulaahi faysal xuseen hubinta waxaa lahaa kulu xildhibaan cabdixakiin macallin daahir 23 bishii shanaad 2018 hotel kalansi salaada cishe kadib waxaa ku dilay liibaan aadan muuse hubinta waxaa lahaa cabdiqani farxaan kuluu cismaan xidigle cismaan xuseen ismaaciil 10kii bishii afraad 2019 masaajidka abu hurayra salaada cishe kadib waxaa ku dilay barkhad cawil xirsi nuur sahanka iyo wiidada waxaa lahaa cabdiqani farxaan kulu iyo cabdulaahi faysal xuseen ciid سعيد جامع محمد سعيد مردون tobankii bishii tobnaad 2020 masaajidka Abu Hurayra salaada maghrib kadib waxaa gacantiisa ku dilay Barkhad Maxamed hubinta waxaa lahaa meydka Cabdiqani Farxaan Kulu
bashiir maxamed xaaji xuseen 26 bishii labaad 2018 xaafadda garsoor waxaa gacantiisa ku dilay salaada maqrib horteed waxaa gacantiisa ku dilay farxaan faysal xirsi muniir hubinta waxaa lahaa meydka cabdiqani kuluw cabdi jaamac xasan cabdi guube 5 bishii afraad 2020 jiiro bariis maalinimo waxaa gacantiisa qarax ugu xidhay baabuurkiisii liibaan aadan muuse cadde halkaasoo baabuurkiina ku burburay asagiina ku naf waayey xildhibaan cali faarax bootaan cali ceejis hotel kalansi maalinimo waxaa qarax ugu xidhay baabuurka liibaan aadan muuse cadde waana ku nafna waayey baabuurkiisina waa burburay maxamed cismaan aadan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka mudug baabuurkiisii waxaa qarax ku xidhay liibaan aadan muuse nasiib wanaag waa ka badbaaday guddoomiyuhu taliyihii hore cabdiqani xaabuun gaarigiisii waxaa qarax ku xidhay liibaan aadan muuse laakiin wuu ka badbaaday intaa oo jariimaah oo labeentii gobolka mudug ah madaxdii iyo saraakiishii dalka ah waxaa gacantooda ku dilay raggaa aan kor ku soo sheegay oo aan magacyadooda soo sheegay walaa taziruu waasiratan wisra ukhraa waa aayad saxiixa dembi aysan lahayn saari mayno qofna qof kale dembigiisa ma saarin tan labaad fiqigii uu soo qabsaday kitaabka minhaajka bukhaari wuxuu ku sheegay haddii qof caydhsanaya qof kala qabto gardaduub u qabto oo kii caydhsanaya inta soo gaaro torrey ku dhaabo oo uu dhinto waa runtii shareecada islaamku waxay sheegaysaa kaa dilay gacantiisa ayaa lagu leeyahay waxaan maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus gobollada mudug iyo cayn hor keenay eedaysane maxamed deeq cabdi xuseen maxamed deeq 18 jir ah ina deeq axmed cali ku dhashay jabuuti degan gaalkacyo shareecada islaamka iyo qodobadii xeerka loo gafay heer number 9 farqadiisa qodobkiisa labaad farqadiisa labaad iyo 234 heerka ciqaabta Soomaaliyeed farqadiisa labaad tixraac xaashida lambarkeedu yahay F isbaaro qacbada isbaaro gobolka mudug tiradeedu tahay 2001 ee la qoray 8 bishii labaad 21 kuna saabsanayd gungaar gal dacwadeed
faahfaahinta eedda xeer ilaalinta eedaysanaha kor ku xusan ma sheegin inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab mana qiran balse wuxuu qirtay oo caddeeyey inuu lacag la ururin jiray al-shabaab muniir faysal xirsi oo ay hadda ka hor saaxiib ahaayeen lacagtaas wuxuu la soo ururiyey 3 bilood oo bishiiba hal mar tahay sida uu qiraalkiisa ku sheegay wuxuuna ka qaatay 3 jeer muniir lacag kala ah 500 oo shilinka Soomaaliya 2 milyan iyo 500 oo shilinka Soomaaliya 3 milyan oo shilinka Soomaaliya eedaysanuhu wuxuu weydiiyey al-shabaab muniir faysal xirsi lacagta aanu ururinayno waxay tahay ii sheeg wuxuuna u sheegay muniir inay tahay sakaawaad al-shabaabku leeyahay waana bishii ugu dambaysay lacag uu la ururiyo markaa kadib wuxuu sheegay inuu soo wacay al-shabaab muniir faysal xirsi markii bishii afraad macni wuxuuna caddeeyey inuu diiday inuu u tago muniir kadib markuu ogaaday lacagtooni sakaawaad wuxuuna yidhi muniir faysal haddaadan ii imaan wixii kugu dhaca adiga ayaa mas-uul ka ah umana tegin eedaysanuhu maxamed deeq 4 beri kadib waxaa la xiray muniir faysal xirsi oo aniga ii hanjabayey iina dhaaranayey markii horena lacagta aan la ururin jiray kama warqabin inay sakaawaad tahay markaan la ururinayay lacagta qaybta baarista dambiyada CID waxay caddeeyeen inuu lacagta sakaawaadka ah la ururin jiray muniir faysal xirsi sida uu ku caddeeyey kofishinka ama qiraalka garsoore hortiis looga qoray waxayna caddeeyeen in dembi dhacay kan galayna uu yahay eedaysanaha sare ku xusan mar hadduu sakaawaad gacantiisa ku soo ururiyey waaya eedda xeerlaanta xeerlaaliyuhu markuu arkay xaashida gungaarka qaybta baarista booliska CID ee gobolka mudug gaalkacyo xeerlaaliyuhu markuu arkay qiraalka looga qoray garsoore hortiis waxaa u caddaatay inuu la shaqaynayey 3 jeer oo uu lacagta la ururinayey muniir faysal xirsi sidaa darteed xeerlaaliyuhu wuxuu soo jeedinayaa inay go'aan ka gaarto eedaysanaha maxkamadda sharafta leh ee darajada koowaad ciidamada qalabka sida dambiyada culus gobolka mudug iyo cayn wabillahi tawfiiq qaar ka mid ah qareennadii u doodaya 7 xubnood oo lagu eeday inay ka tirsan yihiin al-shabaab xukunkana lagu riday ayaa dhankooda ka hadlay maxkamadda sharafta leh waxaan uga mahadcelinayaa qaabka iyo hanaanka iyo habsami socodka iyo ogolaanshaha iyo ogolaatay mar labaad inaan ka hadlo fursadan
badin mayo waxaan rabaa inaan dhowr nudqo ku soo koobo sidoo kale mudane gudoomiye waxaa muhiim ah qiraalka xeerlaaliye waxa laga yaabaa inuu isagu arkay laakiin annagu ma aanan arag qiraalka waa jeclaan lahayn in la akhriyo qiraalkaas oo iyada laftirkeeda goortii la akhriyo la yiraahdo haye hebel warkaagii warakan ma yahay hadduu yiraahdo confirm hadduu yiraahdo ma aha haye sheeg warkaaga wuxuu yahay in la dhaho xaq u leeyahay oo la weydiiyo dadkoona la wada arko anu qiraalka ma arag laakiin alaaba hada waxa jira waxyaabo xeerlaalinta iyo qareemada oo isku khaldaan qoraal iyo qiraal baa la isku khaldaa qiraal waa kan garsoore hortii ka dhaca waafaqsan qodobka 68 waa qiraal waa sharci waa la qaadanaya laakiin waa in la akhriyaa la arkaa qofkii la weydiiyaa uu ka jawaaba haddii kale wuxuu noqonayaa qoraalada si ay dhiido kale kama duwanaanayo haddii aan la ilaalin qodobka 68 oo shantii shay oo qodobkaasi sheegayo aan laga helin qiraalka qiraal ma noqonayo qoraal buu noqonayaa mudane gudoomiye inta waxaan rabaa dooda feed anigoon badinay inaan xirlaaliha inta ka ilaha wali waxaan taaganahay qodobadayadii su'aalaha marka waxaan rabaa xirlaalinta in la ii weydiiyo ay tahay eeda aan haysano eedaysanaha labaad baan tusaale u soo qaadanaya eedaysanaha labaad xirlaaliyo waxaan u maleynayaa waxay ku taalaa maxkamaddu waa fiirin ka dhaa beejka shanaad eedda xafiiska xeerlaalinta beejkiisa shanaad waxaan codsan lahaa xeerlaaliyuhu inuu halkaa qodob dul maro magacaygu Muxiidiin Cabdulqaadir Maxamuud waxaan sidoo kale qareen u ahay muwakkiliinta kale ah Farxaan Faysal Salaad Xirsi oo 16 jira ina Ubax Axmed Wehliye iyo muwakkilka labaad oo ah Cabdulaahi Faysal Xuseen 16 jira ina حالي محمد حاشي iyo muwakkilka saddexaad oo ah Barkhad Awil Xirsi Nuur ina Baarliin Ali Xasan muwakkilka afraad oo ah Liibaan Aadan Muuse Cade oo ah asaguna ina Nicmo Xasan Mahdi iyo muwakkilka labaad oo asaguna ah Cabdiqani Farxaan Cabdillaahi ina Khadro محمد نور موكلك ugu dambeeya oo ah ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Awil Maxamed ina Samsam Salaad mudane gudoomiye iyo garsoorayaal eedda xafiiska xeer ilaalintu uu sheegay ma waafaqsana qodobadii sharciga ahaa oo loogu talagalay in eedda xafiiska xeer ilaalinta lagu saleeyo xajmiga dambiga inta uu leeg yahay waxa weeye marka looyarkii iga horeeyay waxa uu qeexay oo uu qaada dhigay eedda xafiiska xeer ilaalinta maadaama muwakkiliinta aanu difaacayna ay yihiin kuwa isku mid ah waxaan rabaa inaysan waqti badan naga dhumin inaan dul istaago waxyaalihii uu looyarku ka hadlay waxaan rabaa inaan u gudbo waxyaalaha boontiyaasha yaryarka ah u baahan dulmaridda haddaan u daayo xeer qareenku inta uu soo sheegay difaacii isku midka ahaa iyo waxyaalaha processka sharciga oo la rabay in la buuxiyo xafiiska xeer ilaalinta eediisa oo aysan ka muuqan gabagabadii ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolada Mudug iyo Cayn ee dawladda Puntland waxay soo gabagabaysay isla markaasna xukun ay ku riday 7 nin oo 4 kamid ah xukun dil toogasho lagu xukumay halka 2 kamidana lagu xukumay 20 ilaa 30 sano oo xariga iyo mid kasta toddobaad oo lagu xukumay 5 sano oo xariga asagoona halkaasi uu ku dhawaaqay xukunkaasi lagu riday 7 nin Cabdiraxmaan Warsame Jaamac gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dawladda Puntland ee gobolada Mudug iyo Cayn الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محكمة waxay ku dhawaaqaysaa xukunkii ay u fadhiisatay 27 bisha
ama 24kii oo intaas soo socday gabagabadiisii iyo xukuumadii ka soo baxay ayay maxkamaddu dadka ugu dhawaaqaysaa ama u yeerinaysaa waxaa fadhiistay maanta oo ay taariikhdu tahay 31 bisha 1 2022 maxkamadda darajada 1 ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus gobolada Mudug iyo Cayn iyadoo fadhigeedu u dhan yahay oo uu xeeraliye ka yahay Caawil Warsame Maxamed waxayna u fadhiisatay kiis ciqaab ah oo uu dhibane ka yahay dawladda Puntland iyo marxuumintan marxuum gaashaan la sare Cabdirashiid Xasan Xaashi Gebigebi marxuum gaashaan le Gaani Cabdiraxmaan Nuur marxuum xildhibaan Mukhtaar Cumar Axmed Tiinle مرحوم إبراهيم شيخ حسن عيرو مرحوم محمد يوسف حير مرحوم قاشان لده حاشي آذن علمي حاشي فري مرحوم حدقلة عثمان حسين إسماعيل عثمان فري مرحوم سعيد جامع محمد سعيد مارادونا مرحوم عبد الجامع حسن عبد الجبي دبنا قدومية محمد اسمان آذن إسلام كان له هيستي إذا سنياش كلاءه إذا سنياش كلاءه فرحان فيصل حرسي 19 جير هنا أبح أحمد وهلية عبد الله فيصل حسين 19 جير هنا حالي محمد حاشي برخد عول حس النور 19 جير هنا بارلين علي حسن ليبان آذن موسى عدي 20 جير هنا نمعو حسن مهدي قدوميها محكمة مركو أقادي إن أي دنيهين دنعيدي دودو قصيسي وحاو فري دودي سيدا قضبك بقول يصدح حيرك هبك عقابة الصومالية حيراليوه waxa uu bilaabay dacwadii sida uu qodobka 119 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxa uuna yiri eedeysanayaasha afarta waxay kamid ahaayeen al-shabaab tababarka waxay ku qaateen aska gaalkacyo dawladda Puntland iyo shacabkeeda waxay u geysteen dhibaato weyn oo naf iyo maalba leh iyagoo u adeegaya ururka al-shabaab kuwaasoo qaraxyo iyo dilal qorshaysan ka fuliyay degmada gaalkacyo kuna laayay haldoorkii labeenta u ahaa bulshada Puntland سنة كواد فرحان فيصل وحاو كبيري الشباب سنة كي لبكن 8 تضواء وحا تشكيلي أمير تيري وحا قري شباب بركة عول حجس النور وحانا حكمي تين كيسا عبد القادر أحمد أمل
uuna shabaab u qaabilsanaa markii la qoray kadib tashkiilinta dhalinyarada iyo amniyaadka. eedaysanaha labaad cabdulaahi faysal wuxuu ururka al-shabaab ku biiray sanadkii 2017 waxaa tashkiiliyey amiir jeeri asbaabta xukunka. maxkamaddu markay akhrisatay gungaarka galdacwadeedka uu soo gudbiyey xafiiska baarista dembiyada gobolka mudug ee CID. maxkamaddu markay akhrisatay eedda iyo gebagabada xeer ilaalinta. maxkamaddu markay dhegaysatay difaaca qareennada. maxkamaddu markay aragtay qiraalka warqadda kufishinka eedaysanayaasha looga qoray garsoore hortiis. maxkamaddu markay akhrisatay caddaymaha maqalka iyo markay aragtay caddaymaha maqalka iyo muuqaalka ah. maxkamaddu markay furtay fadhiga koowaad ee maxkamadda dhegaysatayna doodii labaad, saddexaad iyo afraadba, eeddii, difaacii iyo doodii dhex maraysay xeer ilaalinta iyo qareemada kuna qaraacday maxkamaddu. xukun maxkamadeed. showr maxkamadeed kadib eedaysanayaashan farxaan faysal salaad 19 jir ah, ina ubax axmed weheliye, cabdulaahi faysal xuseen 19 jir ah, ina xaali maxamed cali, barkhad cawil xirsi nuur 19 jir ah, ina baarliin cali xasan, liibaan aadan muuse cadde 20 jir ah, ina nimco xasan mahdi. afartaba maxkamaddu waxay mid kasta ku xukuntay dil toogasho, iyadoo maxkamaddu u cuskatay shareecada islaamka, suuratul maa'ida aayadda 33aad, xeer lambar 10 qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad iyo qodobka 434. ciddii dood ka qabta waxaa u furan rafcaan 30 casho gudahood ah. taliyaha xabsiga waxaa la farayaa inuu ku hayo xabsiga xukumanayaasha. garsoorka go'aanka gaaray. gudoomiye cabdiraxmaan warsame jaamac, gaashaanle cabdiraxmaan warsame jaamac gudoomiye, gaashaanle cabdi faarax cali garsoore, dhamme cabdiweli maxamuud maxamed garsoore, laba xidigle maxamed xaashi boos kaaliye. waxaa fadhiistay maanta oo ay taariikhdu tahay 31 bisha 1 2022 maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus gobollada mudug iyo cayn, iyadoo fadhigeedu u dhan yahay oo uu xeer ilaaliye ka yahay caawil warsame maxamed
waxayna u fadhiisatay kiis ciqaab ah oo loo haystay oo uu dhibano ka yahay dowladda Puntland iyo marxuuminta kale ah marxuum kiis gaashaanle sare cabdirashiid xasan xaashi isla markaana loo haystay waa soo koobkoobayaa oo macnaha dee waa la wada maqlayay ama waa la wada akhristay iyo isla markaana loo haystay eedeysanayaasha kale ah cabdiqani farxaan cabdulaahi 18 jir ah ina khadro maxamed nuur cabdiraxmaan cawil maxamed 18 jir ah ina samsam saleebaan xasan gudoomiyuhu markuu ogaaday in ay leeyihiin dhinacyadii doodu qusaysay waxa uu furay doodii sida uu qabo qodobkaas xeeraalyuhu waxa uu bilaabay dacwadii sida uu qabo qodobkaas gungaarka galdacwadeedka uu soo gudbiyay xafiiska baarista dambiyada gobolka Mudug ee CID maxkamaddu markay akhrisatay eedda iyo gabagabada xeeraalinta maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareennada maxkamaddu markay aragtay qiraalka warqadda kufishinka eedeysanayaasha looga qoray garsoore hortiis maxkamaddu markay akhrisatay markay aragtay caddaymaha qiraalka iyo maqalka iyo muuqaalka ah maxkamaddu markay furtay fadhigii koowaad ee maxkamadda dhageysatayna doodii labaad saddexaad iyo afraadba eeddii difaacii iyo doodii dhex maraysay xeeraalinta iyo qareemada kuna qanacday maxkamaddu xukun maxkamadeed shawr maxkamadeed kadib eedeysanayaasha cabdiqani farxaan cabdulaahi 18 jir ah ina khadro maxamed nuur cabdiraxmaan cawil maxamed 18 jir ah ina samsam saleebaan xasan maxkamaddu mid waxay ku xukuntay 30 sano midna waxay ku xukuntay 20 sano maxkamaddu eedeysanaha koowaad cabdiqani farxaan ina khadro maxamed waxay ku xukuntay 30 sano oo xarig ah maxkamaddu eedeysanaha labaad cabdiraxmaan cawil ina samsam saleebaan waxay ku xukuntay 20 sano oo xarig ah iyadoo maxkamaddu u cuskatay xeer lambartan qodobkiisa labaad farqadiisa labaad ciddii dood ka qabta waxaa u furan shacfaan 30 cisho gudahood ah taliyaha waxaa la farayaa inuu xabsiga ku hayo xukumanayaasha garsoorka gaaray cabdiraxmaan warsamo jaamac gudoomiye